Gacmaha oo ku gariira runtii waa waxyaalaha keena inuu qofku kalsoonidu ay ka lunto ama uu qabsan kari waayaba shaqooyinkii caadiga ahaa ee uu qabsanayay. Soo dhawaada mar kale iyo in aynu eegno waxyaalaha keena oo ay ka mid tahay wax loo yaqaano normal and lifestyle related causes oo ah waxyaalo normal ah oo haddii iyaga la joojiyo si yaroo fudud qofkaasi uga ladnaan karo sida loo yaqaano physiological tremors, waxa la yidhahdo caffeine and alcohol and nicotine usage, iyo temperatureka oo extremiska of temperatureka inuu qabow aada u badan jiro iyo inuu kulayl aada u badan jiro iyo qofka oo jimicsi aada u badan ama daal u ku yimaado. Kuwa waxaa loo yaqaanaa normal and lifestyle. Qaybaha kale oo aynu ka hadli doono iyadna waxaa ka mid ah qayb la yidhaahdo medical conditions and neurological disorders. Kuwa waxaa iyaguna asaas u ah wax loo yaqaano essential tremors iyo Parkinson's disease iyo stroke and multiple sclerosis, iyo iyada oo lagu daro ilaa iyo 4 yaryar oo loo yaqaano dystonia, thyroid disorders, iyo liver or kidney failure or nutritional deficiency. Kuwaasina waxa ay noqonayaan kuwa ugu waaweyn ama inta badan la isticmaalo ama lagu arkaba qofka xanuunadan qaba. Waxaa kale oo soo raaca xilliyada qofka macaanka qaba oo kale ay sokortiisu hoos u dhacdo oo loo yaqaano hypoglycemia oo ayadna keentaa gariirka qayb ka mida. Qaybaha kale ee iyadna laga hadli karo waxaa ka mid ah medical ama medications and toxins oo ah in qofka dawooyinka qaar ay side effect leeyihiin kuwa oo keeni kara in ay qofkan ku keenaan gariir. Waxaa ka mid ah dawooyinka loo qoro qofka asmada qaba ama qofka qaba neefqabatowga iyo qofka qaba waxyaalo ka mid ah immunosuppressionka inuu qofkaasi allergy iyo wax lamida qabo. Qaar ka mid ah ayaa keena side effectyooda. Waxaa kaloo ka mid ah haddii qofku ku sumoobo wax loo yaqaano heavy metaliska iyo neurotoxinska waxa loo yaqaano haddii qofku ku sumoobo, kuwaasina way keenaan sida qofka beeraleyda ah oo kale waxa loo yaqaano pesticideska oo kale iyo kuwa solventiska ka mid ah iyaguna way keenaan. Waxaa kale oo keena dadka uu ilaahay ku ibtileeyay ama shaydaankuba aan idhaahnay inaan ilaahay u nisbaynine alcoholka, khamriga iyo drugska. Marka qofku markuu khamriga muddo cabi jiray haddii uu isku dayo inuu joojiyo ama uu drugs qaadan jiro joojiyo, waxaa laga yaabaa inay iyaguna ku keenaan dhibaatadan. Haddaba waxaynu isla eegaynaa sidee loo joojin karaa ama loo yareyn karaa gariirkan ka jira gacmaha. Qaybta koowaad ee hore uga soo hadalay ee normal and lifestyle relatedka ah ee nolosha caadiga ah ee bini'aadanka si toos ah ula tacalluqda waxaa ka mid ah sida physiological tremorskaasi, sida qofku marka uu cadhoodo iyo marka uu qofku xanaaqsan yahay ama stresska uu ku jiro waa ku meel gaadh oo maaha wax joogto ah. Sidaa awgeed inta badan marka uu qofkaasi dego ama xaaladahaas ay ka tagaan ayaa ay iyaguna tegayaan. Marka waxa iyaga haddii ay noqdaan mid soo noqnoqota ama ay noqoto mid joogto ah ayuu dhakhtar u baahanayaa oo la siin doonaa dawooyin xilliga caawiya. Waxaa kale oo jira wax loo yaqaano saynu kasoo sheekanay shaaha iyo kafeega iyo dadka shaydaanku ku ibtileeyay khamriga. Kuwaasina waa inay iska yareeyaan ama ay joojiyaan haddii ay dhibaatadani marka ay cabaan ay ku imanayso. Xilliyada qabowga iyo xilliyada kulaylahana haddii ay xaaladani ku timaado, dadka qaar waxaa muhiim ah inay u diyaar garoobaan oo waa shay iska fudud. Daalka iyo jimicsiga aadka u badan ee jidhka la daalinayana haddii ay kugu timaado markaad jimicsi aada u badan samayso ama aad daal badan uu kugu dhaco, iyadana waxaad u baahan tahay inaad iska yarayso. Marka xaaladda koowaad ee normal and lifestyleku waa xaalad si yaroo fudud looga gudbi karo. Xaaladaha kale aynu ka hadlayno waxaa ka mid ah
sida loo xalinayo kuwa ugu muhiimsan uguna awooda badan ay yihiin waa medical conditionska iyo neurological disorderska. Essential tremorsku waa gariirada joogtada ah ee ku yimaada laguna qaldo mararka qaar Parkinson's disease xanuunka loo yaqaano. Waxaa lagu xaliyaa iyaga in la kantaroolo marba xaaladda jirta iyo halka ay involvement ku leedahay. Intooda badan waxaa la yidhaahdaa sababta dhabta ah ee keentay aad looma yaqaano, laakiin waxaa la kantaroolaa xiliyadan dambe nidaamyo casri ah oo loo yaqaano ultrasound. Nidaam casri ah oo ultrasoundka ah oo la beegsanayo qeybta maskaxda ee keenaysa in uu samaysmo essential tremors. Xakamaynta iyo daweynta essential tremorska waxaa kow ka ah in qofka lifestylekiisa iyo behaviorkiisa wax laga bedelo. Maxaynu uga jeednaa lifestyle iyo behavior? Waxa weeyaan qofka habku u dhaqmi jiray sidii u noolaa qaab ka mid ah in wax laga bedelo. In la baro waxyaalaha horta bilaaba hadduu masalan khamri cabi jiray ama uu coffee aad u badan cabi jiray dabadeedna ay bilaabi jirtay in loo sheego la yidhaahdo jooji. Waxaa kale oo la barayaa qofka waxa la yidhaha stress management oo ah in qofku waxaan stresska iyo buuqa la yidhaha sida loo maamulo. Farsamooyin bay leeyihiin. Dadka oo dhan waa ku dhaca stressku, laakiin dadna si fiican bay u maamulaan, dadna way sii siyaadiyaan oo warwarka ay isku badiyaan. Waxaa kale oo jirta in loo diro physical ama physical therapy oo ah in qofka physical ahaan la tababaro oo qalabka yaryar ee gacmaha lagu jimicsiiyo, muruqyada lagu awoodsiiyo, coordinationka iyo habka motorka iyo controlka maskaxda iyo sida ay jidhku u maamusho iyadana kor loo qaado. Saddexdaasi waxay ugu waaweyn oo ay yihiin waxay qaabka in qofka loo sheego. Laakiin haddii aynu nimaadno nidaamka dawooyinka, waxaa la eegayaa qofkani bal waxyaalaha keenaya hadday yihiin stress u control kari laayay ama waxyaala la mid ah. Waxaa dawooyinka qaar ayaa la siinayaa, dawooyinkaasi oo u baahan in si careful ah loogu taxadiro, sida dawooyinka muxuu ahaa dhiigkarka oo kale iyo dawooyinka gariirka ka hortaga qaar ka mid ah oo mid walbaaba ay u baahan tahay in dhakhtar uu qoro oo aan suuqa laga qaadanin, iyo kuwo kale oo iyagana loo yaqaano iyaguna qaabka maskaxda uun ku tacalluqa. Waxaa kale oo jirta haddii qofkaasi si kale loogu maara waayo in waxa la yidhaahdo botulinum toxinska qaar ka mid ah lagu mudo si ay bal hawsha u xaliso. Waxyaalaha kale ee loo samayn jiray beriga hore waxaa ka mid ah ama ilaa haddaba la sameeyo surgical procedure treatments oo ay ka mid tahay deep brain stimulation waxa la yidhaahdo. Inkasta oo hadda lagu bedelay waxa la yidhaahdo high intensity focused ultrasound. Kaasi ayaa ah imika runtii isagoo qofkaanu qaliinna gelin waxna gelin in maskaxdiisa ultrasound la saaro dabadeedna la eego meelaha ay ka imanaysa gariirkani ee leh temperatureka aadka u sarreeya, dabadeedna la target gareeyo laguna sameeyo halkaa in gaar ahaan qeybta waxaa jirta kolley dee waxay cilmi aad u badan oo uma baahnin in mid walba si gooni u galo, laakiin qeyb thalamus la yidhaahdo oo maskaxdeena ka mid ah ayaa maamusha halkaa ay ku sameeyaan deegaan bedelashada ay ku sameeyaan dareen wadayaashu ayaa laga dhaawacaa ama la baabi'iyaa halkii bilaabaysay gariirka. Dabadeedna qofka shaqadu waa ay ka joogsataa ama dhibtii haysay. Labaad wuxuu noqonayaa Parkinson's disease. Waa xanuun runtii isagu dhibaato aad u badan leh oo centralka ama maskaxda ku keena depression iyo anxiety iyo wax lamid ah, inuu qofku isku buuqo iyo wax lamid ah. Sanbabka ku keena inuu airwayga ama obstruction ku sameeyo intana hawadu marayso, muruqa inuu daciif ka dhigo, xanuun badanna uu ka dareemo, inuu qofka calool istaag iyo wax lamida uu ku keeno, inuu qofka dhidid fara badan uu isagana ku keeno, hadalka oo kale qofka inuu dhibaato ugu keeno, inuu candhuuf fara badan oo qofku afka ka sii daynaya ay ku dhacdo, sida wuxuu dareerinayo oo kale dareeraad fara badan.
inay indhihiisu mararka qaar si aanu ku talagelin ay isku xidhxidhayaan si lamid a. Isaga waa xanuun runtii weyn, dadka waaweyn inta badan wuu ku dhacaa. Waa xanuun runtii isagoo aan gacmaha oo qura ku koobnayn, ballaadhana. Isaga waxaa lagu maamulaa inta badan dawooyin baa isaga lagu bilaabaa, iyada oo supportive therapyna loo bilaabayo. Dawooyinka oo u kala baxaya, qaar baa ay maamulayaan maskaxda qaybaha ay isleeyihiin dhakhaatiirtaasi ay isleedahay way maamulayaan. Waxaa levodopa iyo dopamine agonist iyo MAO-B inhibitors iyo COMT inhibitors iyo amantadine iyo anticholinergics. Dawooyinkaasi oo la isu geeyey, kolbana loo eegay xaaladda uu qofku marayo, ayaa la siiyaa. Supportive treatment iyadna waa la siiyaa, ay ka mid tahay physiotherapy-gu. Waxa kale oo qofka sidii ciyaalka oo kale dib loogu tababaraa waxa la yidhaahda speech and language therapy iyo occupational therapy, oo haddii uu qofku shaqadii uu qaban jiray la tuso sida ugu fiican ee uu qaban karo. Waxyaalaha kale iyadna imika la wado ama la samayn jiray muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka mid a deep brain stimulation wax la yidhaahdo, oo in maskaxda iyadna electricity-geedii ama laydhkii ama danabkii ay lahayd maskaxdu la stimulate gareeyo balse ay u wanaagsanaato. Waxaa kale oo lifestyle-kana in laga caawiyo qofka inta la caawin karayo, exercise-na loo sameeyo, in haddii loo helayo dhaqaalahaan ay suuragal tahayna in group dhakhaatiir oo meel specialist fadhiista loo geeyo qofkaasi, iyo in community-gii xanuunadan qabay la dhex geeyo si uu qofku u arko in xaalkani aanu kelidii ku koobnayn. Marka siyaabaha ayaa isagana loo controlaa. Waxa ku xiga ee aynu controleyna isaguna waxa weeyaan ama la daweynayaa waxa weeyaan waxaan aynu ka soo hadalay stroke iyo multiple sclerosis. Stroke waxay ku xidhantahay xaaladda iyo meesha uu ku dhacay iyo dhibta u geystay inta ay leeg tahay. Mar walbana waxaa lagu xalinayaa marba xaaladda qofka lagu keenay, xilliga la keenay dhakhtarka iyo xaaladda qofkaasi ahaa. Multiple sclerosis-ku isaguna waa xanuun weyn runtii. Bogsashadiisuna ay aad u yar tahay, laakiin isagana in la controlo oo xilliyadiisa lagu controlo. Dystonia ayaa jirta oo ta ku xigta oo iyadna involuntary muscle contractionska ay ka mid tahay dystonia. Dystonia iyadana horta waxa keenay ayay dhakhaatiirtu waa inay ogaadaan, kadibna la eego keenistaasi see loo controlaya. Marka waxaa lagu bilaabayaa iyada botulinum toxin injections ayaa la siinayaa. Oral medicationska sida muscle relaxantiga iyo dopamine agonistiga ayaa iyadna la siinayaa. Haddii laga maarsan waayana deep brain stimulation ama DBS surgery-ga ayaa loo sameynayaa. Dabadeedna physical and occupational therapy joogtaana waa loo sameynayaa. Okay, thyroid disorders ayaynu u imanaynaa oo iyadna qofka qanjirhkan cunaha u bareersan yahay ama uu shaqadiisii shaqo ka badan u qabanayo. Xanuunkaasi runtii waa xanuun isaga oo overactive ah, ama waxaa loo yaqaano hyperthyroidism-ku. Wuxuu sababaa garaaca wadnaha ayuu kordhinayaa, wuxuuna kordhinayaa sensitivity-ga ay neuronisku iyo dareenka ay u leeyihiin dareen wadayaashu. Taasaana keenaysa. Marka isagu wuxuu ku fiican yahay haddii isaga la controlo, oo runtii haddii uu qofku qalin u baahan yahay in qanjirhka laga tuuro, haddii kale oo uu u baahan yahay in ay dawadu u qaato, in dawadii la siiyo. Marka isagu inta badan waa la controli karaa, waana la daweyn karaa. Waxyaalaha ka dambeeya thyroid disordersku ka dambeeyo waa iyadna la controli karaa. Liver and kidney failure haddii ay dhacaan, iyaguna waxay ku xidhan yihiin in masalan haddii liverku xaalka uu marayo, in uu xaalad gebagabaa marayo oo u baahan yahay in qofka beerkaba laga bedelo. Haddii beerka iyo kelyuhuna ay qofka dhibaato ku timaado ama ay shaqagab noqdaan, shaqagabnimadaasi waxay ku xidhan tahay xaalka uu joogo iyo percentage-ka ama boqolleyda
inta ka nool iyo inta shaqaynaysa. Marka inta badan beerka haddii uu xaaladaha kama dambaysta gaadho uu shaqada gabo si dhammaystiran, waxaa loo baahan yahay in laga bedelo. Xalku waa in laga bedelo kelyuhuna waa sidaasi la mid ah. Kelyuhu waxay ku yar fiican yihiin, waa loo maydhmaydhaa muddo ayaa qofka loo maydi karaa dhiigga, kadibna dawooyin controlana la siin karaa. Xagga nutritionka ama cuntada oo kale, iyadu dee dhinac marka laga eego waxyaalaha keena waxaa ka mid a vitamin B12 oo yaraada iyo thiamine mid la yidhaahdo. Marka labadaasi haddii qofku uu leeyahay marka dhiigga laga qaaday la eego inay aada u hooseeyaan, labada ayaa la siinayaa vitamin, dabadeedna qofkaasi waa uu ka raysanaya alxamdulilah, waana wanaagsanaanaya. Hypoglycemia-da ama sonkorta oo hoos u dhacda, iyaduna de waa qeyb ka mid a un dhibaatooyinka jira. Marka iyada waxaa lagu gartaa inta badan qofkii uu dhididaya iyo werwer ayaa u bilaabmaya dhididka, iyo oo waxa weeyaan waxaa la yidhaahdo adrenaline oo hormoonkaasi ayaa kolley ka mas-uula. Dabadeedna qofka haddii markuu qofku dee qof sonkor leeyahay uu inta badan sonkortiisa hoos u dhacdo uu dareemaa. Haddii kalena de waa inuu istijaabiyo ogaado, mashiinka yaraa ku eego. Haddii markaa sonkortiisu ay hooseyso waa inuu wax yaro macaan cuno, uu nastana hadduu shaqo adag hayana shaqada ka yara nasto, dabadeedna uu xaalkiisa mar labaad dib u jeeggareeyo sonkortiisa. Iyadana waxyaalaha lagu daweyn karo ayay ka mid tahay. Medications and toxins waxa weeyaan dawooyinka iyo sunta ama sumowga, waxyaalaha qofka uu ku sumowgo, waxyaalaha ay keenaan iyaga. Haddii masalan tusaale ahaan haday dawo tahay, drugska qofku u qaato xaalada adag sida xaaladda neefqabatowga oo kale, ama uu qofkaasi ay allergy iyo waxyaala caynkaasi hayaan, ama uu qofkaasi depression iyo xaalado ku jiro, kadibna xaaladaha marka uu ka gudbo dawadaasi uu joojinayo, gaar ahaan labada dambe, waxaa markaa u suuragala inuu muddada yar intuu qaato kadibna markaa uu iska joojiyo si ayna xaaladdan ugu noqon xaalad joogto ah. Xaaladda asmada oo kale ama neefqabatowga haddii ay ku keento in dhakhtarkii u tago oo dawooyinka laga bedelo, loo eego kuwa side effectigoogu uu dhaamo ama uu ka fiican yahay. Talabaad ee ah heavy metaliska iyo neurotoxinska. Heavy metaliska inta badan aada uma isticmaalo, laakiin waxaa ka mid ah sida mercuryga oo kale, baryahan dambe dadku ay raadiyaan ama iibiyaanba, iyo leadka iyo manganiska oo kale. Marka laga yimaado kuwa iyaguna aynu imika isticmaalkooga badan aynu isticmaali doono muddooyinka soo socda, marka wadanku si fiican u dego wax laga yaaba in aada u isticmaalo sida pesticideska iyo waxa lamid a sida solventiska oo kale. Marka dawooyinkaasina waxay u baahan yihiin inuu qofku aada uga taxadiro marka uu isticmaalayo, ogaadana inay sun yihiin, khatar weyne ay ku yihiin dareen wadihiisa iyo guud ahaan caafimaadkiisa. Marka inuu qofku markuu waxyaalahaas oo kale isticmaalayo calal aqal qof chemicalkan garanaya uu kala tashado si uu iskaga ilaaliyo dhibaatada kaga imanaysa. Qofku haddii uu iska daynayo drugska oo kale hadduu isticmaali jiray uu iska daynayo, iyo haddii uu qof khamriga shaydaanku ku ibtileeyay uu yahay oo isaguna iska daynaya, isaguna waa inuu la tashado dhakhtar. Waayo qaabka la iskaga daayaa wuxuu u baahan yahay in si aayar qofka looga joojiyo ama bedel la siiyo si uu qofkaasi aanu dhibaatooyinka withdrawalku ayna ugu dhicin, ama dhibaatooyinka qofku marka uu iska joojinayo ku dhaca ayna ugu dhicin. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina. Waxaan rajaynayaa wixii su-aala ah iyo wixii aan ka tegay inaad hoos noogu reebtaan. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina. Waxaana rajaynayaa inaad nagu soo biirtaan haddaydan nala joogin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.